waxa ugu muhiimsan Toronto sheekha lagu xasuusto waxaa ka mid ah wuxuu soo saaray daawo dhareed oo inta badan ay yar tahay inay soo saaraan aqoonyahanada adduunka jooga. Daawo dhareedaasi waxa ay daawo u noqotay weli difaacday xanuunka AIDS-ka iyo kansarka, isagoo sheekha uu yidhi 15 sano ayaan baaraynay. Runtii Cabdixamiid Zandani waa caalim weyn ayuu ahaa. Wuxuu u dhashay dalka Yemen. Inta badan noloshiisa waxa ugu qaatay dalka Yemen, inkastoo waxbarashada meelo kala duwan u aaday sida Masar iyo Suudaan. Marka 82 jir ayuu ku dhintay. Dalka Turkigana ayuu ku dhintay oo maanta lagu aasay. maxaan kan ognahay marka noloshiisii hore iyo hadda xiliyadii dambe iyo waxyaabaha uu soo kordhiyayba. Sheekh Cabdixamiid Zandani marka laga hadlayo waa shakhsi weyn oo miisaan culus ku dhex leh muslimiinta. Culamo waaweyn ee muslimiin ah xilligan adduunyada ku sugan ayay arday u noqdeen oo hoos fadhiisteen. Waxaa lagu xasuustaa jaamacadda Al-Imaan ee ku taala Yemen ayuu aas-aasay. Waxbarashadii markaan ka hormarno Jaamacatul Azhar ayuu wax ka bartay. Inta badan mucjisada Quraanka Kariimka ayuu aad markaa u daraaseeyay. Aqoonyahano waaweyn reer galbeed ayuu inta badan la dooday. Sheekha kitaabo badan ayuu qoray. Waxa ugu muhiimsan Toronto sheekha lagu xasuusto waxaa ka mid ah wuxuu soo saaray daawo dhareed oo inta badan ay yar tahay inay soo saaraan aqoonyahanada adduunka jooga. Daawo dhareedaasi waxa ay daawo u noqotay weli difaacday xanuunka AIDS-ka iyo kansarka, isagoo sheekha uu yidhi 15 sano ayaan baaraynay. Inkastoo inuu daaha diiday oo ka fido baaritaankaasi uu yidhi waxa ugu yiri maafiyada daawooyinka ayaana markaa waxa uu yidhi aan ka qarinayna uu yidhi. sababta u qariyay maxay tahay maadaama cudurkaasi dad badan oo muslimiina iyo dad badan oo kale oo aan muslim ahaynba ay la nool yihiin lana rabo daawo in loo helo. Waad mahadsan tahay. Inta badan reer galbeedka iyo ninkan dood dheer kula jira sheekhan caalimka weyn ah. Inta badan muslimiintu waxbuu u tarayay iyo dadka kale waxbuu u tarayay. Laakiin cilmi baaris reer galbeedka ay soo weydiiyeen waxa uu yidhi maya idiinma siinayo oo waa ii qarsanaanaysaa, muslimiinta ayay gaar u noqon doontaa ayuu yidhi. Doodaas ayuu markaa sheekha uu lahaa. Marka waa caalim weyn runtii Toronto. Badanaa muslimiintu muhiimad weyn ayuu u xambaarsanaa caalimkan. Mucjiso weyn ayuu markaa u lahaa. Muslimiinta waxay kaga dhigan tahay musiibo weyn u soo hoyatay maadaama qof weyn ka baxay. waa gartay waxyaabaha kale oo laga dhaxli doono oo ninkaasi uu ka tegay ama maaragtay raadax ee uu sameeyay maxay tahay. Waxa uu qoray kitaabo badan. 5 kitaab ayaan u sheegaynaa bulshada. Kitaabka koowaad Tawxiidul Qaaliq, sidoo kale Al-Imaan ayaa ka mid ah. Cilmiga ku jirta ka mid ah kitaab uu ka qoray. Xujooyinka cilmiyeed ee Quraanka ayaa ka mid tahay. Marqaatiga iyo mucjisooyinka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ka mid ah. Sidoo kale dadka sifeynayaan caalimka waxaa ka mid ah culimo Soomaaliyeed oo mar walba ay u tagayeen talo waalidnimo iyo sidoo kale dardaaran culimo ay u tagayeen. Marka waa qof runtii galaangal weyn ku leh. Xitaa Yemen markaan fiirino waagii Cali Cabdalla Saalax 2011 kacdoonkii uu waday, waxay sid mudan in dhalinyaro markaa mudaharaad sameynayeen oo nabad ay rabeen uu yiri uu taageeray. Dhalinyaradan way saxsan yihiin oo wadanka waxay rabaan inay runtii nabad ay doonaan oo wanaag rabaan. Marka dawladdu wuxuu ka codsaday in la difaaco dibadbaxyadaas. Marka qof wuxuu lahaa ka runtii galaangal siyaasadeed leh. Xitaa Mareykanka ayaa ka shakiyay, inkastoo uu yiri Mareykan uu yiri waxa adiga aad leedihiin inta badan dawladda Yemen ha loo soo bandhigo. Kadibna Mareykan way ka ogolaadeen. Marka wuxuu ahaa caalim dhexdhexaad ah inta badan muslimiinta oo aad wax u taray oo wadamada muslimiintu ka soo muuqday. aad buu mahadsan yahay Said Albani oo aan ka wareysanayo caalimkaas weyn oo maanta geeriyooday, runtiina ahaa shakhsi saameyn weyn ku leh dunida muslimka iyo waliba caalamka oo dhan. aad baa mahadsantahay.